السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. isku soo noqod wanaagsan dhammaan walaalahayga Soomaaliyeed. Ilaahay subxaana wa tacaala waxaan inoo wada weydiinayaa dhammaanteen bifadlihi wa bicizatihi wa biqudratihi inuu fadliga tobanka dambe uu ina siiyo kuwo ka faa'iidaystana uu inaga yeelo. Maanta mawduucan halkan kaga hadlayno waa mawduuc ku saabsan cadowgaaga saddexda ah ee hoos kuu dhigaya. Waxaa wanaagsan inaan si fiican u fahanno nolosheena, hirdanka iyo loolanka gudaheena ku dhex jira. Halgankaas iyo loolankaas uu ka kala dhexeeyo maskaxdeena, qalbigeena iyo jirkeena iyo ruuxiyadeena. Waxaynu mawduucan kaga hadlaynaa ama aan kusoo gudbin doonaa in cadowgeena dhabta ahi aanu dibadda ahayn ee uu yahay kan gudaheena ku jira. Dabcan mar walba waxaynu maqalnaa cadowgayga derbiyada ha jiiro iyo cadowgayga xagga ha ka dhaco iyo xagga ha ka dhaco. Laakiin aaway cadowgeena rasmiga ah ee nolosheenu ay leedahay ay annaga inagu dhex nool. Cadowga koowaad waa walwalka. Qof walba wuu dareemaa walwal waqtiyadiisa ka mid ah. Ma ahan inuu walwal free ka yahay. Si kastay ahaataba, walwalka badan wuxuu kaaga dhigayaa nolosha mid adag oo aan kuu saamaxayn inaad ku raaxaysato noloshaada. Waa inaad u aqbasho walwalka si arrin dhab ah, inta uu warwarku kula aadin xaalad inaad meel iska laalaadiso ama carooto ama niyad jabto ama aad qalqasho. Ka qaado warwarka cabirka caafimaadka leh, inta kalena iskaga tag. Yacni waxaa jira walwal caafimaad qaba oo wanaagsan iyo walwal xun oo kaa dhigaya noloshaada mid daciif ah. Ogowse in yar iyo in badan oo warwarka ah labaduba waa dhibaato. Maxaa yeelay warwarka saa'idka ah waxa uu yareeyaa wax soo saarka qofka, waxa uuna burburiyaa kalsoonida uu naftiisa ku qabo, wuxuuna lumiyaa diirad saaridiisa. Halka warwarka aadka u yarne uusan lahayn wax dhiiringelin ah, mana ku dhaqaajiyo qofka wax soo saar iyo shaqo toona. Marka warwarka caafimaadka qaba, laba tusaale haddaan kasoo qaato, ardayga markuu wax baranayo ee iskuul sugayo ee natiijooyin imtixaan iyo uu ka fakerayo, dabcan wuu fakerayaa, wuxuuna ka fakerayaa siduu imtixaankaas natiijo wanaagsan uga keeni lahaa. Halkaas waxaa ka dhalanaysa warwar. Warwarkaas marka waa warwar faa'iido u leh marka uu natiijadiisa gaaro. Halka warwarka labaad ee isna faa'iidada leh uu yahay hooyada uurka leh markay isku bedelayso yacni jismiyan iyo maskixiyan labadaba. Waxay hooyadu qaadanaysaa talo walbuu dhakhtarka siiyo, waxay u walwalaysaa ilmaheeda caloosha ku jira, waxay samaynaysaa waxa caafimaadkeeda kor u qaadaya, wax walbo caafimaadkeeda hoos u dhigayana way joojinaysaa. Walwalkaas marka hooyadu ay dareemayso waa walwal u ah caafimaad iyada nafteeda iyo ilmaha caloosha ku jira. Halka walwalka aan caafimaadka qabina uu kaa dhigayo midaan wax soo saar lahayn oo noloshaada dhan baabi'inayo, burburinayo. Cadowga labaad waa cadowga cabsida. Qof walba waa inuu wajahaa cabsidiisa. Qof walbana cabsi wuu dareemaa oo qof cabsi aan dareemin dunida ma jirto. Laakiin su-aasha meesha taalaa waxay tahay sidee ula macaamili karnaa ama sidee ula dhaqmi karnaa cabsideena. Marka hore waxaan u baahannahay inaan xadidno meeshaan u soconno inta waqtiga ka dhiman. Yacni waxaan rabno waa inaan xadidno oo aan garanayno aansaan u ogaano cabsideena meesha ay ka imaanayso. Waxaa jirta hal arrin taas oo riyadeena ka dhigaysa midaan macquul ahayn inaan gaarno, waana cabsida aan ka cabsanayno inaan guul daraysano. Yacni qofka waa col hortii jabay. Yacni qofka bini'aadanka inuu ka cabsado guul darro isagoon ficilkii samaynin ayuu wuxuu ka cabsanayaa hadduu ficilkaas sameeyo ama ku guul daraystaa. Taasna runtii macquul uma ahan inaad guulaysatid. Maqaca cabsida laftigeeda markaad cabsi maqashid iyadaa cabsi sii kordhinayso, laakiin cabsida laftigeeda uma aysan joogto ama jirkeena ilaahay uma uusan gelinin inay anagana wax yeelayso, laakiin waxay inoogu jirtaa jirkeena waa digniin. Waxay ku tusinaysaa markii xaalad khatara lagu jiro inay ay tahay waxaan inaad ka istaagtid oo ka joogtid ay kaa cabsi geliso. Marka ay tahay inuu isbedel yimaado ama wax aysan marka hore aysan la qabsan nafta aad samaynaysid, dabcan cabsi baa kusoo wajahaysa, cabsi ayaa dareemaysaa. Iyadana waxay ku leedahay wax ayaa jira, waxaas jira, la soco oo maaree. Marka mar walba ahow qof cabsidiisa wajaha. Cadowga saddexaad waa shakiga. Shakigu waa cadowga ugu weyn oo burburiya, wuxuu baabi'iyaa xasiloonida gudaha. Shakigu wuxuu sameeyaa wax walba oo nolosha kaa luminaya, kaa baabi'inaya. Shakiga maskaxdaada ku jira ayaa ah jidgooyada ugu weyn ee guusha.
marka loo eegayo caqabadaha aad u marayso safarkaaga. Dabcan waxaan wada ogsoonnahay markuu qofka safar uu isticmaalaya ama safar guuleed ama isbedel uu sameynaya, qofka waxaa lasoo kulmaya caqabadooyin aad u badan. Caqabadahaas oo u baahan tilaabsi iyo ka fakar iyo waxyaalo badan. Marka caqabadahaas intaysan kuu geysan ayuu horta marka hore isaga jidgooyo kuu geysanaya. Jidgooyo kuu dhigaya, jidgooyadaas dhibaatadeedana waa tan kuu saamaxaysa inaadan isbedel aadan sameynin. Shakigu wuxuu dilaa riyooyin badan, in ka badan guuldarrada. Dabcan guuldarradu waa process ama waa tilaabo kale ee aad qaaday noloshaada kusoo kordhisay. Mana ahan tilaabo xun because qof aanan guul daraysan maba guulaystaba. Guuldarraduna waxay ka dhalataa waxa aad samaysay oo riyadaadii ka mid ah inaad gaari weydid. Marka intaadan guul daraysan ayaa shakigu kaa burburinayaa ama kaa dilayaa riyooyinkaaga. Cadowga ugu xun ee hal abuurka waa shakiga nafta. Yacni inaad naftaada shaki ka qabtid, cadow kaaga xun ma jirto. Inaad tiraahdo naftaada aamini weydid oo aad tiraahdo aniga waxaas ma samayn karo, waxaa kuma fiicna, waxaas kama soo bixi karo, waxaas ma qaban karo. Cadow ka xun oo qofka bini'aadanka uu samaysan karo ma jirto. Marka walwalka, shakiga iyo cabsida waa cadowga koowaad oo ku dhigaya dhulka, kuguna duugaya ciidda inta dhimashadaada ka hor. Yacni intaadan dhiman ayay saddexdaas cadow haddii aadan fahmin oo aadan la macaamiltamin iyagu ay ku duugayaan. Marka rumayso uun naftaada, waxaadna noqon doontaa mid aan la joojin karin. Intaynu ku kulmayno video kale oo xiise leh, waxaan idinka tegayaa fi amaanillaah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.